jeclahay gabiyadiisa misana حق سوغان تاسو oo jiro si fiican waxa kamid ah abwaanka weyn Abdullah Hadraawi qalad inkastoo maxay ahayd aan isku dayin wali isiisa kana day aan matali karin hatta aan soo dhaweyn karin hadana waxa kamid ah abwaanada aan adka ugu maxay ahayd aan wax say abwaan suuga wax kamid ah Allah naxariista abwaanada yani aan adka aan u jeclaa abwaan kale inta farbadan iyaga oo jiraan maxay ahayd aan ka helo suugaantooda marka qaar isku day sida iyagu u sameeyaan inaan u sameeyo ama marka arkayga waxay ka hadlayaan inaan isku day inaan maxay yani aan sameyn karo kale inta aan ka hadli karo marka tusaale Abaan Hadraawi ayaa soo qaad Abaan Hadraawi waxaan ogsoonahay in uu gabiyo waliba suugaan qaybaha kala duwan dhan walba uu ka taabto marka ma jira gabiyada iyo abaankaasi soo tirinay in gabi aad leedahay gabigaas alla leeyahay dareen gooni ayuu ku leeyahay si fiican gabiga waxa kamid ah laanta si fiican adiga ayaa ku soo laaban doonaa gabiyada adiga maansooyinka adiga aad tirsid hadda wax ma xasuusin kartaa leedahay maans hebel ayaan idinka iga xasuusin karaa si fiican maansooyinka inkasta iska fara badan yihiin waxaa jirto maanso aan la dhaho maxay dagaal imaan doonto darar bay imaan doonto warajo maalin bay imaan doonto oo rajo camal oo kaleente marka wuxuu dhacaa sidan waxaa jiro badanaa marka maasada iyo suugaanta weliba dadka loo gudbinayo badanaa in sharaxaad hore loogu yarbiximo waa aad tahay Soomaalidan waa hab kaliya wax lagu gudbiyo marka waxaan jeclaan lahaa in daawadayaasheena aan u sii radugleeno oo hadda markaad noo akhrinaysid dhagahooda meel waliba aad ka taabanaysid suugaan maasadaasi aad ka akhrinaysid aad leeyahay dabcan way fahansan yihiin marka ugu horeyn dharaar baa imaan doonta maxaa kugu dhaweeyay horta inaad macnaha maasadan dharaar baa imaan doonta aad adiga culisid maasadan dharaar baa imaan doonta waxay ka hadlaysaa horta يعني ودنيد مثلا ودنيد اواي مرة وحي امانيسا محايا دولك امانيسا مرنا يعني وطن كان انو فيقنان دونا يعني وح ايمان دونا محايا مادام هدا وبدنا لباتي قلاسي وحيا بسكجران يعني وحاس هدا لباتي انك كمان دونا وكلا انت كهلسا oo maxay ahayd hadana yani marka qaybta hore inta waxa ka hadlaysaa wada way amaanaysaa dadka amaanaysaa qaybta dambare waxay ka hadlaysaa in yani rajo aan qabno maxay ahayd ay wadanka fiicnaan doona soo marka waxaan igu kala faa'iido wadankii marka raad baa imaan doonta dabcan aniga waxa isku madaynay markaad noo sheegaysid raad baa imaan doonta talo ma jecel baa sidoo laakiin hadda waxay tahay mid dhirtii iyo geedkii daaqii dhulkii iyo quruxda wadanka looga sheekeynaya dabcan sidaa marka waxaad leedahay dhulkii aan u tiriyo dhulka maadaama uu yahay asnaftiisu mudan yahay in inaan marka qaar la xuso marka tani waxa uu hadiyay dhulka waan maqashin ka taageertaan daraar baa imaan doonto wuxuu dhacsataan runta dhaafi maaye dhulkayga adduunyada meel aanba kula dhigo dhayahaygu may qaban dhagtayduna may maqal barafyo dhacaayo iyo malihid dhaxanay qabow inkastoo dharaarooyin dhib iyo mudatay diiqad ma jirto meel kuu dhigmaysa haddii nabad lagaa dhigo dhulkayga udgoonkaaga muuqiyo dhalaalkaaga dhismihiiyo aqoontaada ubadkiyo dhalaankaaga calankiyo dhalintaada markan dheehda quruxdaada in ku dhaanshooda beyntu way ka dheertee dhaayaha ku dogsada inta dhiman adduunkayga dhexdoodan ku noolaado ku dhintaan jeclaan laha adduunyada dhammaysiiyo dheelitiran ma noqotee u sabar dhalaankaaga rajadaada yay dhiman dharaar baa iman doonto qarax iyo dhibaatada dhiigaas masaakiinta xumaantaba dhammaan doonto dharaar baa iman doonto dhulkii naruuradiyo nimcada lagu odhan doono dharaar baa iman doonto Soomaali dhamideeda gacmaha isku dhigi doonto waa shantii la dhihi doono dharaar baa iman doonto qabyaaladu dhammaanayso qabiilkan la dhihi doono oo Soomaali dhalada dhaafsaneen hadal kale dabcan waa ilaa iyo 6 baragaraaf qayb uu kooban yahay suugaanta waxaan jeclahay in bal haddii aad noo ogolaato aad baragaraaf bal noo yar fahansiisid
baargraafka u horeeya camal oo kaleento waxay ka hadlaysaa yacni dhulkayga wanaag uu leeyahay kaleento meel yacni dhulkayga inaysan jirin meel oo maxay ahayd loo dhiga asagoo kaleento aysan jirin baargraafyada kaleento waxay ka hadlaysaa maxay ahayd yacni inuusan dhibaato lahayn oo yacni baraf iyo yacni wadamada baraf qabow iyo kuleel xilli kuleel iyo xilli qabow labada saameyntoodii goonida uu la daraa kale si fiican yacni inuusan baargraafyada kaleentana waxay ka hadlayaan qaar dhexda ku jira waa amaanaya yacni in aan jeclahay yacni dhalintiisa calankayga waxaas in yacni aan jeclaa kaleento baargraafyada dambeetana sida ujeeda dhawaar baa iman doonto yacni wuxuu ka hadlayaa rajo weeyaan rajo oo in yacni maxay dhibaatada iyo hadda waxa lagu jirana ee dhammaan doonto وعاد لها شنطة صومالي إيمان ومدودة دانتا قعماس قصود إن شاء الله وما سنت هاي واحد لي هذا مع الدعوة عشان أنا ويكهلين وحن دعلا هاي نقولي مركي أكتر روحه وينا صومالي ذا بدنا عادي قوني إليين ودم مركبة لين هذا إن صومالي ذا من هجال إن جاء قوادي كويهين كذا حقه المركة إن كستوا وعيه الدنبي وحكس يسبدلين adiga maadaama aad ka mid tahay haweenkaasi tahay ruux qoro curiyo ma jiraan caqabado intii aad ku guda jirtay qoraalkaaga ee gabiyada iyo suugaantan iyo inta waxaan aad hagaajinayso oo aad qoraysay dadku niyidibiyo ama sana ku macnaha si ku caqabad geliyo maya marka yani inta wax qoray qof isdiirigeliyo يعني أصحاب كلنت أنا سيا سي دير قليل مركز تدام هاي ما شاء الله قرنت هذا في عنده ورسي ساعة واحدة همينة إلا هذا ما أعرف قفي يعني إذا هاي هاي ذي من مركز قارو جبت مركز واحد سوق قرا كلنت وحيابها إيه قبضنا كلنت إذا ما شاء سكا قبضنا ما شاء إسكسر قسم دير قليل كلنت إيه مركز يعني واحد قبض هاي ذي إيجا مركنا مركز ما جرتو عقبة أن كل ما محيي كاس صاحبة سيد سكول كم جامعة داس دقتان مثلا ملاك ترتيب البشرة داس كلها حتان مركي أي أركان إن حبكاجي وفهم كي يولي بريسكا أقول له هاي إن كمية بيحن إن مركو حلا له ديك جيم سيدا يسيان وحي ستان مثلا كيكة مجرد ما مرة ولي بان محيي سكانتي تذكر bulshada si kasta kala qaybsantaa waalidha ahaato walaalayaasha asxaabtida ahaato yani mar walba dadka kama arko yani wax niyad jab ah yani nagu sii dhiirigeliyaan macayana markii laga soo tago maansada hadda aad mootirisay oo aad dhulka u tirisay ma jiraan marka maansooyin kaleeto oo dareenka ruux misana wadaniyad misana jaceyl misana gaabiyo noocyada kaleeto aad ka tiris ma jiraan maansooyinka أفكار بدين مثلا كذا مش على موسيقى كذا waxaa jirto maaso iyadana maxay hooyo la dabcan waxaad noo sheegtay inaad hadraawi ka jeceshahay maasooyinkiisa iyo gabiyadu u tiri dhammaan maasadii hooyo laanta adigana maanta waxaad gaar la tahay inaad maanso kaleetoo lamid oo adigana hooyo aad ku dhamaanaysa marka hooyo awaalkeeda lagu gudi karo marka maansadani hooyo maadaama ay tahay mid hooyo dareen hooyo kaliya kugu dhaliyay misana ruux kaleeto wax qabsaday inuu ku sheekeeyay sheekadiisa aad maqashay aad ka qortay maxaa noocaas ay kugu dhaltay maya qof kale ma qorin dareen hooyo kaliya hooyo aan ka qoray hooyo xogaa oo iga yar fogeedo gobolada iga jirtay marka dareenka hooyada oo qabo una ka hadlaysaan marka maamadii hooyo ka fogay markay ka fogaatay oo gobol iyo gobol kale aad kala joogtaan يعني هويدا wanaag markaas soo fogaanteeda kama laakiin waxaan ka hadlayaa hooyada yani fiicnaanteeda iyo wanaageeda iyo yani waxa ereeyada marka hadlaysaa maasada waxaan jeclahay naftirkeeda madiideena maadaama hooyada ay ku saabsan tahay waa noo horumarinaysaa oo si aniga dhegeystayaasha dhammaan dhagihiina ay u dhegeystaan maasada hooyo maasadan maxay ahayd waxaa leedahay laxana leedahay way wadataa laxanka aniga maliye laxan Soomaalida oo isticmaasho lama aqaan qofka laxanka sameeyay
laxan Soomaalidu oo isticmaasho ama laxankaas aan soo qaatay ma luqadahaan aad laxankii ku jiraysaa ها إذا ما صديقه كان لحن أنا كوجود منها. وجعلنا هنا دقيقة إنه بديرنا. أوكي. نحدثه. دمستيران هاي وعن تكهين لا شيء دبتاي أدني قدي ذكيسي تلاها كبرباري صايلة dawarkiyo dhaxday midkaad dhinaciisa tahay midkaad dabta saartay dhiigiya canahaada jaqay nolosha dhadhankeeda iyo aasa heladu gaalawe baymanay hooyo udug dhayaha aragay dhibka haddii la soo martaa qorahal ku dhamayni karin habeenaadii la dhafayso hurdana dhinacaada dhigin dhaxaha murugiyo xanuun nacday deeftii dartay dharatan dunida imid anigoo dhamaystirnaa waataad farxadii la dhacday waxaan ku dhamaynayaa nolosha dhimani hartay allahu caafimaad dhamays ku siina lilitiran xanuuna ku dhaafiyo nolosha ku dhamaysa qurux. آمين آمين آمين. ما شاء الله درينكي كشيء طبعا فيسو هويو أمال أول كده ما هنتول مسؤول جديد كرو. وحنا سليها عيد نفس كده برجرافي أي كوبان انتهى. سيدا هنركو شيء وإن هذا يرجع عيو وبرجراف كستو إلا كل استعمال هذا برجراف كوبات ده هويو وهم دين معاك إذا كان لبعضنا يبكي عرش اللي أنت مسجرنا وهيني أنا ناقص إن أحو يرجع عسيد. طبعا هرتا ما أصلا مركل ترنا أوان كذا حدي الأركت معرك جودها خاص إذا أساسي فسراسة يعني فسرات مركل الله إذا أساسي فسراسة يعني إنه حكى لسا يعني دواتين كذا سمرت فوشا محيدي إن أنت حملة أنت يعني محيدي وكوسيدي مركل أشياء كده بسدير ما أوفر حاسة يعني وحياة أي كده هلا إن قيت دم بسنة تعرفت وأنا موجود عناية عن حيد عند عدو شهورنا مركا إذا بس فسرها سوا فيسو ما سنتع مركا أدمي بلابسي ما صدق هويو يا واحد كويدي سؤال ما دام الدخوري هويو وصل جانا تبعنا درابي مركا واحد جعل هنا كويدي أبانا ذا مثلا قرا مثلا حلابور كل ما أقول بأيهين من الله الله كلا قاعدة روح أنا مسكحيسي ما دام إيتاي مدقن أو واحد كستنا حفظين كرتو قولي كرتو معناه دوبي كرتنا واحد هذا أيها الله الله كلا قاعدة هنا أبوان أو مركي ومقلو واحد الصورة وقت هذا كستاغن ماشي أيضا وحيد عن هب سوغان أنا مركي شركة أنقوش شركة أنقوش فيس ما توحد عضي أقوار مثلا واحد على الويلو isgarabtahay ana isticmaashay mid kamid ah xoog badnaa oo kii xoog badnaana waa la tuuray kii xoog yaraa tuuray marka ku dhaado ana waa sheeko caadi ah laakiin ninka adwaanka ah meeshaas markuu taagan yahay hab wuxuu ku gudbinayaa dareen minna wixii dhacday meesha ayada taalay uu arkay inuu qaado xaafadda wala tago qoro la xameeyo hagaajiyo tafatiro ka bacdi ayadoo macnaha wanaagsan qurux badan sida hadda oo maanta hadda noo qaadaysa amal isku toosan iyo isku toosan ah oo macnaha la hor yimaada bulshada marka adiga ma waxaad ka mid tahay dadka maskaxda marka ay waqti cadar ka deertaan meesha anay taagana amal gabi ku curin karo isla markiiba waxay arkaan indhooda ku arkaan isla markiiba xifdiyo oo wax toosan oo tuus oo ka soo saaray isku aadan isku toosan oo dimaasada caadar dhammaystirana
مثلا وحي عاد مقشة روح صاحبك كل عينه تصاري روح صاحبك ونبر حنون معناها سوق بصير هذا الشيء نور أدق المصامر عم نوريش أدق مكان ليستيد كبعد قرتيد أو تفترتيد أو كل عبتيد كبعدنا بحال صوبان كسر سارتيد مثلا وحي روحي سلمانك وكاشة كي مثلا افتحالك أقول جوج أو تعيبه سلمانك واحد كسر سارك تعجب المستر farmaajo markii qof talabada meel baa ka sameeyaa mararka qaar oo dhacda in maxay ahayd arrin degdeg oo kale inaan arko laakiin markaas aan wax sameeynayo iyadoo inid iga jirto waxa laga yaabaa markaas inaan qoro markaas badanaa meelaha buuq oo kale nafis inaan tagan jeclo oo kaliya faraaqay markaa wax qoraayo si ay maxay waxba iga qaldamin oo kaleento يعني ما أنت كمان تقدر سوق حلاقة وين كوسا أركا أحمد كوسا أركا إن حافظ تجمع كسر قر أنا مش أنا تاجن ده أنا حقر أحبنا أي غلطة ما يسوى لكن إنك حافظ تجمع كسر إن أنا محيط لا أنا حقرته مدة كمان علاقة في كلامت إن درين كيس عن كسر ما محيط ما يسوين عاد ما سوى حد جرته محيط أمان دوسمي وحنكسمي جبر صاحبنا maxay tarankeedii wadaagteegana socodtayna maas ka sameey maasadana maasa oo dhibaato ma maas jacayl ka la soo yani marka waxa sameey ama qofka dareenkiisa iyo wadaag waqti badan inuu qaadato yani diyaarinteeda maalmo iyo habeen iyo uma qaato isla marka waqtigaas aan joogo hadii amal firaaq joogo waan sameeyaa waxaan jeclahay waxaad sheegtay markii bilowgii in markii muusiga baasha aad bilaabaysay gabiyada maansooyinkan aad ka bilaabaysay xilli aad u daa'irada iskoolka hoose dhexeeyay dugsiga sare soo dhiganaysay waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo ma xasuusataa maalintii kugu horreysay oo aad istiraahdo waa maxay wax kaa yeeriya amsana ereyada noocan kaa soo burqanaya talo waa maxay istiraahdo xasuustida oo isku aragtid in macnaha haybadaas aan leedahay si fiican fanfarkii ahayd inkastoo fanfarka marka ay maansooyinka maroo isku dayi jiray aniga og inay wax badan ay ka qaldan yihiin oo wax isku beersan yihiin haddana waa isku dayi jiray fanfarkii aan bilaabay isku day hadda marka jaamacadda bilaabay sanadkii hore marka jaamacadda bilaabay aan si toos u arkay aniga maxay yeeday oo sameynay ma qorinay markii aad qortid maansadaani maadaama hal abuur aad tahay oo macnaha urisid gaba ee suugaanta ma waxaad bulshadiina waxay u badatay baraha bulshada oo isticmaalaan sida aaladaha facebooka youtube-ka iyo meelo kale oo dadka bulshada wax looga gudbiyo hal abuurkaaga waxaan aad qortid xageed ku kaydaysaa ma waxaad ku kaydaysaa barahaas bulshada ma waxaad ku kaydaysaa buug ma waxaad ku kaydaysaa meel kaleeto xageed ku kaydaysaa marka gabayadan aad qortid marka qora badanaa waxaan Facebook iyo soo dhigaa martii Facebook aan ku leeyahay kuwa qaarna waxa jira inta qoro inaan soo dhigan oo maxay keeday amal yihiin kuwa qaarna waxaan soo dhigaa martii Facebook soo dhigaa ana dad ma si kale inta waxaan ku hayaa maxay aan weli Facebook soo dhigan laakiin aan sameeyay oo qofkii codsigiisa iga sameeyay gabadha iga codsatay sameysay arab inaan kula wadaago maasadaasi intii aad nood bilaabeen waxaad noo sheegtay intay gabar saaxiibtaa kula soo wadaagtay dareen ayada ku dhashay weliba dareen jecel ayada ku soo qabsaday marka kasoo goodaasay ma jiraan saaxiibo kaleeto ama asxaab kaleeto oo Facebook meelaha waxay dhigtid oo kaasoo arkaan oo ku yidhaahdo anaga noocaas aan qabsaday waxaan kaaga baahannahay in macnaha ereyo muujinaya dareenkeena aad nala wadaagtid ama noo wixiis noo celisid marmar waa dhacdaa inay maxay la soo wadaagaan ama u sameeyaan laakiin waa dhacdaa in maxay la wadaagaan la soo wadaagaan arrimahaas kale inaan la sameeyo jawaab celin noocaad kala kulantaa markii aad baraha bulshada soo dhigtid waxaan aragnaa marka gabar in ay hor yimaado baraha bulshada wax ay soo gudbiso la yiraahdo macnaha jawaab celin ma kala duwan macnaha la kulanto marka adiga soo gelisay jawaab celin nooca la kulantaa marka aad wax soo gelisay baraha bulshada walaahi saxra ku sheegay jawaab celinta mar walba iyo feedback aan kala xaday in lagu sii taageero ama lagu sii dhiirigeliyo ama hor lagu sii waxaan u laabanaynaa gabadhaasi dareenka aad ku qortay jaceylka marka haddii aad adigoo ayada noo matalaysid
noo faahfaahaysan si waxyaalaha ku leedahay laakiin haddii ay suurtagal tahay ay ku dhihin xifdi ana la wadaagtid oo dhibkii gabadhaas ka qabsaday bal waxaad xiriirkaas jeceel maasadaan ku qasbay inay kula soo wadaagtay tiraada iga qor maasa dhibka hadlaysa ma ahaba maasa dhibka hadlaysa maaha yacni ina qof ay xiriir leeyihiin xiriirkooda wanaagsan yahay isjecliyeen kadibna maxay xiriirkooda si wanaagoodas aan ku maxay yacni maasa ahaan u soo maasantahay waxaas dhahay maadaama ay soo gudbisay gabadhaane maase ku saabsan jaceylka igtira iga qoro taas dhaa dabcan waa xiriir micnaha wanaag ku dhisnaa oo marka dambana calaf micnaha kala geeyey marka taas unbaa badanaa as yiraahdan arki jira waxaan jire maadaama kan waa ku duwan waa xiriirkii jiro socdo yiri wanaagiisa waa aragnaa noo sii ammaan noo sii bade waxaan jeclahay marka inaad noo dhacday marka caadi markaas kabacdaan tafsiirkiisa dib isku soo laaban doonaa si fiican wuxuu leeyahay adaa dhiiggayga raacay dhammaan xididada jirkayga ku milmay dhuuxayga hoose dharaartaan aqliyeystay ilaa haatan la dowro ruuxan kula dhiga xaqiiqada ayagu may qaban xabiibi qalbiga dhintagaysi baa tahay jacaylka ka dhow xumaanta adaan keligaa ku dhowrtay dhankaaga adkaymacan dhigaada adaan helaynin u dhaafay dartaa ragoo dhan anaan kelmad dhaafsanaynin dunida waxyaalo oo dhan agtayda haddii la dhoobo anaan kelmad dhaafsanaynin dunida waxyaalo oo dhan agtayda haddii la dhoobo dharaartii naga xumaato xanaaq uu dhaco dhexdeena adoon dhibsan xabiibi abtaada isaarta daqiiqad idheh erey aan la dhaco sidaasay ku egtay waxaan u malaynayaa dabcan afar qayb ayadana soo kooban tahay marka haddii aad noo yarfasatid madiidi lahayn والله نصيحة إسفسر فترات كلامته بسيباني يعني قف كلامته جعل أو يعني كل دردار ما يجعل كيسة ونينا بهذا السياسات كي نقول إتا درارتان درارتي نجح ماتي يعني ها أنا استقالنا كلامتين هذا يعني هذا أديكو دبسن ترتيبنا يعني مثلا حيث كلامته كلا سا marka kasoo koobay gabadhan hadda ka qortay adigu ma leedahay macnaha dhankaas مثلا waxaad leedahay dhanka oo suugaanta waxaad qortaa oo keliya maasada dhanka oo madaniyadii iyo hooyadii iyo caruurta waxbarashadii iyo dhaqaalihii iyo dhankaas baad ka gashaa wadanka jecelka isku mideen maya dhikastaan ka qaraa aniga tan baad aniga qorta ma inkastaan qofka dareenkiisa ka qaraadana dhankastaan ka qaraa masiin kalanta way jiraan jacayl ayagana aan qoray marka tan hadda kula wadaag kuwa kalanta kula wadaag karaa way jiraan masantahay waxaan jeclahay marka laga tago baraha bulshada iyo buugagta aad ku keedaysa suugaantaada ma jiraan marka meelo kaleto aad sida wacyigelinin bulshada keliya baraha bulshada iyo buugagta maane waxaad jiri karaan meelo oo bulshada isugu yimaado oo kaleto fursado muhiim u heshay in macnaha dad oo aad ku wacyigeliso suugaantaadaas heebada ilaaha kugu dhaliya aad ugu gudbis maya wili muskuleena dhikas maxay asas ma wili iskumatay so aday ku horeysa manana fursad wili ma waxaa jiri karo gabdho sidaada camal danaynayo in macnaha amsana laga yaabo inay ku jirto heebada qorista iyo uruska sheekooyinka gabyada iyo weliba suugaanta qaybeeda kala duwan anagoon hal u kala tilmaameen marka gabdhahaasi hab noocee ku horumarin karaan dhanka suugaanta weliba heebada ilaahay uu ku dhaliya ayaga suugaanta wax hadiyad ilaahay ku siiyo waaye qof kasta iskama helo inkastoo beriyahan ama suugaanta xoogaa in sida steebkeeda ka hooseyso maxay marnaa يعني قفك هاد إلهي هيبت كسية هيبت هذا لما قرية برشة كل فايدة ستة أكو صابن لك أساسا أنا قلت لا waxaa jiro dhalinyaro hortaa adiga meeshaan isku wareysanay sidoo kaleeta ayagana qorayaal ahaayeen gabyayaal ahaayeen ayaga naftarkooda albaaniya ku jireen wixii dhawahooda dhigihii kusoo dhacayay badan oo afkooda kasoo baxaya waxay ahaayeen inay dhaxal leeyihiin
adiga dhaxal muu leedahay gabyada iyo suugaantii iyo waxaan sheekooyinka adiga qortay dhaxal side dhaxal micnaha tusaale waxaa يعني إنا قفك أو يسيري قلبنا waalidkii awowyaal iyo aabayaal inay micnaha ayaga ahayn dad suugaantii gabyadii waxaan ku fiican saas darteedna adiga micnaha ay kugu dhalisay marka inaad saa ku fududayso maanta inay noqoto si fiican famil ahaan way jiraan dad oo suugaanta ku fiican inkastoona iyagana aan aysan soo bandhigaan laakiinse yani baraha bulshada aad loogama yaqaano oo soo bandhigaan laakiinse ahaan caadi oo maxaa maasiikaraska ayadiyaa ka mid ah oo maxaa tirsa maxaa gabyada masooyinka tirsa marka way jiraan waxaan rabay inaad ku weydiiyo ayadana sheekooyinka dhanka sheekooyinka dhahan kaliya micnaha helis marka la dhaho waa inaad wax qori kartid micnaha wax abuuri kartid marka hal abuurkaagu sheekooyin ku jiraan oo aad leedahay mahal abaal baa noqotay sheeko noocaas oo kaleetaan abuuray oo aan diyaariyey maya ma jirto marka soo isku tiin marka dadka sheekooyinka iyo wili xariir maa la dhahaa soomaalida sheek xariirka soo isku tiin ayada والله إنجلس كنا دين بارتا وكذا كده ونسكو وتسألين كراسة صح ما شاء الله waxaan jecelahay barnaamijkii bilibadgelguladii barnaamijkan kusii dhaweynahay adigana maanta fursad ay noo tahay inaan soo qorto gabyada iyo sugaantii iyo hal abuurka meeshaan aad ku haysid aad micnaha kula qaybsano si fiican maanta kaliya ma noqon doonto waxaa laga yaabaa inaan marar kale toos aragno fursadda oo isku yeelano sidoo kale insha allah marka intaan soo gabagabeyn ka hor maxaad jeceshahay in aad micnaha mustaqbalkaaga heer intee leeyaad ka rajaynaysaa in micnaha gabyada suugaanta buraanburada dhaantada qaybaheeda kala duwan oo dhammaan ay isku kulmiso in heer intee leeyaad jeceshahay in aad ka gaartid والله هير وناكسن إن كذا مسوين قيبت مسوين كبجرة وندرجينا أنا قيب كلام توبان أنا ورثان قدر هير كهير كسي وننكسي وكلمة بدنا وقت هذا قرحة بدنا تسيسة كنت يقول أنت كحروينا ما سكر أنت كوسا وفانسي رجعبا كوسا رمى إذن ودنيا ده ودنيا ده كلا سووا شخصيا عمله كلام تيجي هذا شخصيا ممكن إيجابي بس يعني ما صير مركز تابعي واحد إسكسي نسيت يعني ضد بينه وحاجرك كل مدة أن يعني أن هلا راح نسمين كره أنا شخصيا عندي سنين لكن كلام تبغينا قصين كتنا جته ما جاء العين إن مقالنا دمان تين داودياش يعني يجيب دمان إن المقالنا ما صار كهر ودنيا دمان ودنيا تي هذا ألك ودنيا سفيا الدنيا الموتو بدأ يسومالي كين بس كويس تا تم حوالي سومالي يقول كمان أنا وتنتي خصيصة هيب سومالي بعنا على مسافة هيب سومالي هيب سومالي بعنا معناه هو هيب هذا الله هو أصلي يعني سومالي بعنا فرع marka maaha qofka muxuusani oo neeqsisa fiican jecelahay inaan maqalno kadibna dee waan kula wadaagi karnaa hib Soomaali kula dhamaanta Soomaaliya aan daawadayaasha dhamaan Soomaali marka inaan macnaha haddii aad noo awoodi doonto oo ku weydiin doonaa inaan noo sharaxdo laakiin ka hor noo akhri maasado maasa gaaban wayaan aad ma dheera waxaa leedahay hayb Soomaali baan ahay idahan ku faanaa dhaqankan hagoognahay hankana sabool iyo kama yimid hoose waxaan hiigsa leeyahay xidigaha halkooda qayrkay halkuu maray ka horeeba mooye ka hooseysmaan hara ma haweysta dibadaha oo ma hayaama dhul kale hadda waxaan jeclaystaa hirarka badeeniyo hawadiina caawdo burdadaygu baxaysaa marka waa badaliyada aad joogtid واشي هيركي عادي وصل عشرة يصير يعني رجعت لك الأساس أو أنت يعني إني ترجع الحمل أكره أنت أساسك الأساس معاه مد وحتى يعني دبدها مد ما بس دبدها ما كان عندي دبدها أنا يعني هيركي إني وصل عن دور بدأ يا طبعا تصل فيري ما هو إن اللي الوضع يستوى أو يصير الوضع يستوى كل صور فيري
markaas marka maasadaas ayay naftarkeedu ma shaksi ahaan maadaama aad u qortay oo aad shaksi ahaantaada u qortay dhalinyartana badanaa waxaa lagu xantahay inay micnaha jeclaystaan weliba jeclaystaan ma ahani sanadihii ugu dambeeyay inkastoo hadda sanadihii hadda ugu dambeeyay soo yaraanayso tahriibka ay ku bateen marka adiga dhankaasi wax ma qorta tahriibka maya weli tahriibka dhankaas waxa uu kama qorin ma las dhihi karaa marka waad ku wahminaysa waxaad leedahay aniga dal kale uma joodin si fiican ma sidan wax u hadlaysaa يعني انت الدولة جعل ما انت دلك جعل انت دلك جعل وهذا marka انت دلك جعل marka tiraahdo dabcan waa inta dalka macnaha niyadooda aan siinaynin inay baxaan ay fikir ahaan sidee ka aaminsan tahay bal hal labo hadii aad tiraahdo dadka badaha isku qoro oo dibadda aadaan sida macnaha tahriibka ku galaan si fiican walahi dhalinyar badan Soomaaliyeed badda nooga dhamaatay aadna waxaan ani horta walahi ani shakhsiyan aad baan ma dib iska daa tahriib xitaa caadi ha lagu wado ma jeclays walahi ma jeclays caadi ha lagu wado xitaa ilama inaan jeclaysanahay marka xalay qof waddankiis meel u dhaanta ma laha ana waddan nala fiican ma tahay jirta sane aniga qof walba waddankiis meel u dhaanta ma jirta marka xalay dhalinyarta dalkiina ka shaqaysta shaqay wax kasta dawladda dalkiina ka helaysiin wanaag iyo wax kastana meeshaan ay taalaa laakiin waxa laga yaabaa iyaga inay badanaa ku doodaan oo yidhaahdaan aniga inaan dibadda aadno waxaan ugu qasbo meelaha dalkii ma jirto shaqo way jirtaa maxaa yeelay waxaa laga yaabaa shaqada ee dibadda ka qabanayaan iyo shaqada inta ka qabanayaan xagga ka qabanayaan inay ka liidataa laga yaabaa shaqo ka liidatan inta ka qabanayaan ka liidateen xagga ka qabanayaan laga yaabaa maanta wax kala duwan isgaar gacan baa xitaa shaqo sooma ya meel kale sharfan malaado meesha aad ka shaqaysid shaqo helaa shaqo la'aan ma jirtaan ilma qofka shaqo si kastaba maanta shaqo darteeda u tahriibaya naftaada xitaa naftaada waxay dad inta tahriibka ku jirtid oo maxay aakhiro ugu haystaa marka waxaa leedahay dadka tahriibka ku filan sidii ka soo horjeedaa dadka macnaha ku riyoodaan inay dalkooda joogaan ay saameyn macnaha ku leedahay kaliya si fiican taasna waxaa macnaha dhinaceeda ka soo horjeedaa dadkan dibadda aadan xaleeda dalkana joogo dalka roon oo liiday jasiira macnaha dabeelihii ka soo dhacayay iyo aan wadan xiistano hirarkooda soo fiirsano si fiican yani meel ka fiican ma jirto yani badiyaad liidaysadid badaas liida bad ka fiican ma jirto soo wadan xiistagtida oo isku joogtada leedahay ugu dambeyn barnaamijkii gabagabadiisa ay marinaa fiiso waxaan jeclahay inaad fursad ku siiyo daawadayaashana dhammaan inaad tirahdid hal iyo labo iyo weliba intaad ka gaartid aad waana tusaale iyo weliba horumarka adiga aad macnaha aad tigsanayso asxaabteyda dhammaan uga mahadceliyo maxay aan u mahadcelinaya dhiirigelinta walba ay siiyaan si khaas ah hooyada aad igu dhiirigeliso inaan maxay mas'uuliyinkayga iyo maxay bixigaan maxay meel fiican gaarsiiyo mar walba igala dadaasho yani sidaan horumarkayga wixii sidaan u dheereyn lahaa mid uma soo qaban karo aad bay u badan aad baan ugu mahadcelinayaa mahadsanideen adigana sidoo kalenta fursada aad ii siisa maanta maxay eeday barasigan qoraxda baan la qaadato markaa mahadcelinaya adina sidoo kale dhammaan anigii dhammaan bahda tusma waxaa ku leenahay maasantaa soo dhowo alaabur wanaagsan daawadayaashana dhammaan waxaan leeyahay dabcan adiga sidoo kaleeto waan ku rajeynayaan mustaqbal wanaagsan video horumar wacan dhammaan daawadayaal waxaa intaas nooga dhan barnaamijka dhalinyarada aad kala socotiin baahiyaha tusmo xaalintiisu dhexe magaalada muqdisho barnaamijkan waxaan socodsiinaya anigoo maxamed ibraahim khalaad farmaajo intii aan barnaamijkan oo kaleeto ku kulmi doono waa aniga oo inaa sidaas nabadgelyo